السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمها بدن وسلامتين ملكستو دنو دافيد كجوكتان كسو دواد برامج كين أخبارات كأفلام تورك ودن بي برامج كين داوداش قيمها بدن waxaan kusoo qaadan doonaa dhammaan shirkadaha kala duwan dhankaasi dalka Hindiya haday noqoto Bollywood ama Koonfur Hindiya dhammaan akhbaaraadka ugu baahantiin ayaan ka soo qaadan doonaa wararkeena daawadayaasha qiimaha badan taan gudu gelin barnaamijkeena marka hore kusoo dhawaada channelkeena fadlan hadday tahay markii kugu horeysa aad soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb ku bilaawno qodobkeena koowaad daawadayaasha qiimaha badan Talaviv VJ ayaa maanta anbaqaada doowista filimkiisa Beastie daawadayaasha qiimaha badan filimkan Beastie waa filim weyn sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan toddobaadka hore waxay soo gabagabeeyeen jadwalkiisa saddexaad sida daraadeeda filimkan jadwalkiisa afraad maanta waxay ka bilowday doowistiisa magaalada Chennai daawadayaasha qiimaha badan filimkan Beastie waxa hogaamiyalka Talaviv VJ iyo atirishada waxa ku jirto lagu magacaabo Pooja Hegde sidoo kale filimkan waxa director-ka Nelson Dilip Kumar sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa lagu magacaabo Beastie sidoo kale doowistiisa maanta waxay ka bilowday magaalada Chennai sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan wararka waxay ku darayaan jadwalka Dubai Chennai markii la soo gabagabeeyay kooxda filimkeena ay u doodi doonaan dhankaas iyo raashka sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan halkaas waxa lagu soo doobi doonaa jadwalo xasaasi ah daawadayaasha qiimaha badan filimkan Beastie waa filim weyn sidoo kale VJ oo la imaan doona horaanta sanadka cusub qaasatan bisha Janaayo sidoo kale feesta ay dhigtaan reer Tamil loo yaqaan Bangala ayaa filimkan soo saari doona daawadayaasha qiimaha badan VJ filimkiisa ugu dambeeyay u guuleysta waa filimka lagu magacaabo Master sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan filimkan Beastie doowistiisa si xawli ah ku socotaa sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa maalgelinaysa shirkadda lagu magacaabo Sun Pictures sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan Beastie waxa ku jiro jalaaga shactarada looga haray qof kale ma aha ninka lagu magacaabo Yogi Babu ayaa door muhiim ku leh daawadayaasha qiimaha badan filimkan Beastie doowistiisa si xawli ah ku socotaa maxaa yeelay waxa la rajayn doonaa sanadka dambe horaantiis in filimkan la soo saaro shaleemooyinka markaana daawadayaasha qiimaha badan waxaan haynaa qodob gaar ah jilaaga lagu magacaabo Fishal daawadayaasha qiimaha badan Fishal ayaa maanta bilaabay doowis film sidoo kale filimkan ma ahan film kaliya laga daawan doono Tamil Nadu waa film ban India min Tulila magaalo ayaa laga daawan doonaa sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan Fishal ayaa awoodiisa ka soo talaabi doonta gudaha Koonfur Hindiya waxay imaan doontaa dhammaan gudaha dalka Hindiya maxaa yeelay daawadayaasha qiimaha badan Fishal maanta wuxuu doowis ku bilaabay film wali aan magac loo bixinin laakiin filimkan waxa la ogaaday in laga daawan doono gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Fishal ninkan lagu magacaabo wuxuu ku tirsan fanka Kollywood xaruntooda ay tahay magaalada Chennai sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan Fishal filimkan wali magac ma loo bixin laakiin hadda waxa lagu yeeraa Fishal 32 Fishal filimkiisa 32 daawadayaasha qiimaha badan Fishal wuxuu ka tirsan yahay jilayaasha aad loo jecel yahay sidoo kale ninkan action gaaro sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan doowistiisa waxay ka bilowday maanta magaalada Chennai ay ka bilowday sidoo kale filimkan waa film ban India daawadayaasha qiimaha badan Fishal filimkiisa ugu dambeeyay la daawado filimka lagu magacaabo Chakra inkastoo filimkaas ganacsiga laga filayo uu ka gaabiyay sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan Fishal maanta doowista wuxuu ku bilaabay filimkan wali aan magac loo bixinin sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Jalaagan waxa u diyaarsan filimkiisa kale lagu magacaabo Enemy sidoo kale filimkaas waxa la rajayn doonaa waqtiga rasmiga la daawan doono in lagu dhawaaqi doono asna daawadayaasha qiimaha badan reer Koonfur Hindiya noloshooda aadi u socotaa sidoo kale howlahooda way socotaa sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan waxa akhbaarna idinka hayna jilaaga lagu magacaabo Saidaram Teja ayaa maanta doowis ku bilaabay film lagu magacaabo Thank You Collector daawadayaasha qiimaha badan Saidaram Teja waxa u diyaarsan filimkiisa lagu magacaabo Republic sidoo kale filimkaas waa film weyn waxa lagu dhawaaqay filimkan Republic in la daawan doono bisha soo socota October koodeeda ayaa tiyaatarada la saari doonaa sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan akhbaarta ka cusub Jalaagan waxay tahay filimkan ayuu maanta doowis ku bilaabay lagu magacaabo Thank You Collector ayuu doowis ku bilaabay wararka hordhac daawadayaasha qiimaha badan waxay sheegayaan laadarka awoodda badan lagu magacaabo daawadayaasha qiimaha badan laadarka awoodda badan ee lagu magacaabo Jagapati Babu ayaa la sheegay in filimkan uu laadar ku jiri doono sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan Saidaram Teja maanta waxa anbaqaaday doowista filimkiisa lagu magacaabo Thank You Collector daawadayaasha qiimaha badan waxa lagu dhawaaqay waqtiga rasmiga ah la daawan doono filimka lagu magacaabo Vijay Raghavan daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa hogaami ama jilaaga ah daawadayaasha qiimaha badan Vijay Anthony daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa lagu dhawaaqay waqtiga rasmiga ah la daawan doono waxa la daawan doonaa bishan ku jirna September daawada markay ku beegan tahay ayaa la daawan doonaa sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan qoraa iyo director waxa ka ah ninka lagu magacaabo Nandaya Krishna sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan meel ku qorto filimkan lagu magacaabo Vijay Raghavan waxa la daawan doonaa taariikhda markay ku asaysan tahay 7 September ayaa tiyaatarada la saari doonaa daawadayaasha qiimaha badan kana daawadayaasha qiimaha badan soo qaadana today in history maanta oo
kale aflaamta caanka la daawaday daawadayaasha qiimaha badan maanta oo kale 1 September 2006 waxaa la daawaday filimkan magaca la gaarayo Munaabai daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxaa hogaamiyaalka ah Sanjay Dutt sidoo kale waxaa ku jira Arshad Warsi sidoo kale waxaa ku jirta gabar lagu magacaabo Fidya Balan daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxaa la saaray tiyaatar gaaraya 600 oo shilin ayaa laga daawaday markaan fiirino daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxaa lagu qarash garay lacag gaarayso 19 karoor cumri ahaantiisna daawadayaasha qiimaha badan filimkan wuxuu soo xiray lacag gaarayso 74 karoor qolyaha cajaladaha qaybiya filimkan daawadayaasha qiimaha badan waxay ka heleen macaash xad dhaaf leh maxaa yeelay lacag gaarayso 34 karoor ay ka faa'iideen natiijo ahaan filimkan daawadayaasha qiimaha badan wuxuu noqday blockbuster taariikhi ayuu noqday oo kale daawadayaasha qiimaha badan maanta oo kale waxaa la daawaday 1 September 1995 filimka lagu magacaabo Vir filimkan waxaa hogaamiyaalka ah Yandara Jaya Barada Arman Kohli daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxaa la saaray tiyaatar gaaraya 105 shilin ayaa laga daawaday filimka waxaa lagu qarash garay miisaanad gaaraysa 1 karoor bar cumri ahaantiisa filimkan wuxuu soo xiray daawadayaasha qiimaha badan lacag gaaraysa 1.69 karoor qolyaha cajaladaha qayb filimkan waxay ka heleen 60 lag sidaa daraadeed daawadayaasha qiimaha badan filimkan wuxuu noqday flop ayuu noqday natiijahan maxaa yeelay qolyaha cajaladaha qaybiyan lacagtay ku iibsadeen lacag ka yar ay ka heleen daawadayaasha qiimaha badan maanta oo kale waxaa tiyaatarada ku hardameen Ajay Devgan oo wata filimkiisa Badshaah oo ninka lagu magacaabo Shuman Quran oo wata filimkiisa Shubmangal Sin sida daraaddeed daawadayaasha qiimaha badan Ajay Devgan waa laga awood batay sidoo kale waxaa guuleystay filimka lagu magacaabo Shubmangal inkastoo daawadayaasha qiimaha badan filimka lagu magacaabo Shubmangal miisaanadiis ay yarayd filimka Badshaah miisaanadiis ay badneed sida daraaddeed daawadayaasha qiimaha badan waxaan fiirin doonaa filim walba iyo natiijada uu ka gaaray box office-ka daawadayaasha qiimaha badan waxaan ku bilaabi doonaa filimka Badshaah oo filimkan waxaa la daawaday 1 September 2010 daawaday waxaa hogaamiyaalka Ajay Devgan Imran Hashimi Elena Dagarus iyo gabar lagu magacaabo Isha Gupta ayaa ku jirtay daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxaa la saaray tiyaatar gaaraya 2850 shilin ayaa laga daawaday filimkan waxaa lagu qarash garay daawadayaasha qiimaha badan 90 karoor sidoo kale cumri ahaantiisa filimkan wuxuu soo xiray daawadayaasha qiimaha badan lacag gaaraysa 65 karoor sidoo kale qolyaha cajaladaha qayb filimkan waxay ka heleen 32 karoor natiijahan daawadayaasha qiimaha badan filimkan wuxuu noqday flop maadaama lacagta lagu iibsaday lacag yar uu soo xiray sidoo kale filimkan waxaa tikid u goostay oo daawadayaasha qiimaha badan dad gaaraya 6 milyan 861 kun qof ayaa tikid u goostay filimka kale lagu magacaabo asna Shuf Mangal daawadayaasha qiimaha badan waxaa la daawaday 1 September 2010 waxay isku dhaceen filimka Badshaah filimkan daawadayaasha qiimaha badan waxaa hogaamiyaal ka ahaayeen Shuman Quran ee gabar lagu magacaabo Badnaakar daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxaa la saaray tiyaatar gaaraya 1300 tiyaatar ayaa la saaray sidoo kale filimkan waxaa lagu qarash garay lacag gaaraysa 25 karoor cumri ahaantiisa daawadayaasha qiimaha badan filimkan wuxuu soo xareeyay 41 karoor qolyaha cajaladaha qayb filimkan waxay ka heleen lacag gaaraysa 19 karoor natiijahan filimkan daawadayaasha qiimaha badan wuxuu noqday samiid sidoo kale filimkan waxaa tikid u goosteen dad gaaraya 3,931 kun qof ayaa tiyaatarada ka daawadeen filimkan lagu magacaabo Shuf Mangal waxaa halkaas inoo dhan daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeena wararka aflaamta ugu dambeeyeen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada barnaamijkan ku soo qaadan qodobka ku soo jiitay comment inoogu reeb sidoo kale data markii kugu horeysay aad soo boqonayso channelkeena fadlan subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like saar like waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan muuqaal qurux badan soo sameeyno sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxaan idin ka codsanaa in muuqaalkan aad share dhahdaan maxaa yeelay si saaxiibo wanaagsan inagoo kale channelka ugu soo xirmaan sidoo kale aragtidaada comment inoogu reeb waxa halkaas inagu dhan barnaamijkeena inta qoqolmeena barnaamij la mid ah waa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh